علينا هذه هوشادي حفيزكي احترام عودي نوغي مدي يدو ما تمني كاغا مقياي aad noo soo xilqaamay si fiican oo qurux badanna maarta noo soo ajiibay nala soo arkay baahiyaha ishugaan gudbinay laba ishu baa ugu waaweynaa labadii wada arkay waxa weeye jidadka magaalada iyo dhakhtarkii insha Allah waxa dambe dib uga sheekaysan doonaa hadii la yiraahdo madaxweyne ku xigeen ku soo dhawow degmada Arabsiyo oo ah degma qaranka meel muhiim ugu jirta bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh madaxweyne ku xigeen mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici madaxda kala duwan ee laamaha gobolka gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha ku xigeenka gudoomiyaha degmada dhammaan laamaha kala duwan ee dawladda xogeeyaha dhamaantii waxa la assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waalaikum salaam runtii waxa farxad noo ah inaanu idinku soo booqano iyadoo wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku xigeenku ay idinku soo booqdaan magaalada Arabsiyo iyadoo ujeedada socodku ay tahay inuu u kuur galo oo soo eego hawlaha iyo xaaladda dadka mas'uuliyadda ay nafaraysa in mal walba kormeer lagu soo maro ummadii laga mas'uulka ah runtii deegaankani waa deegaankii laga doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka labadooda oo deegaankii ugu codka badnaa runtii Gabiley baa loo dhaafaa inta badan oo dariiqaasa furan lama soo maro inta badan magaalada looma soo bayro wufuuduhu way dhaafaan inta badan codkii ugu badnaa ilaa 10,000 iyo dheeraad bay degmada iyo 300 bay lahayd xisbiga kulmiye deegaankani u lahaa oo codka aad maanta kursiga ku fadhidaana runtii farxad weyn bay noo tahay deegaan ahaan waanu ku faraxsanahay waanu u baahanahay runtii wixii baahiye deegaanka in aynu xukuumad ahaan runtii wax ka qabanno oo ay kamid tahay isbitaalka imka aynu soo maray oo qofka uu mushaca runtii ila Hargeysa ama Gabiley loola cararo waa dhibaato runtii jirta iyo dhinaca beeraha oo runtii biyo la'aan ay ka jirto meelaha qaar oo daagagii la xiri lahaa ama biyihii la joojin lahaa runtii ay moodo ilaa beertan ay taaganahay inay fogaadeen oo beerihii runtii qadiimka ahaa ee 50 sanadood 60 sanadood runtii jiray kamid ah marka runtii aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa waxaananu jecelahay runtii inaynu wixii dawlad ahaan aynu qaban karnaba deegaanka aynu u qabanno ku soo dhawaynaa bulshada reer Arabsiyood ahna odayada Arabsiyoodna kamida waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa anigoo afkii reer Arabsiyood ku hadlaya dhamaantoodba degmada Arabsiyood in aanu madaxweynaha ku soo dhaweynay madaxweyne ku xigeenka ku soo dhaweynayno gacmo furan laab furan iyo si aad iyo aad u waji furan oo wanaagsan maanta oo taariikh ah oo maalintii u horeysay ee madaxweyne ku xigeenku Arabsiyo indhihiisa ku arko wadooyinka iyo suuqa dhexdiisa uu lugihiisa ku maray ayaa aad iyo aad noo farxad gelisay sida uu sheegay agaasimaha guud Faysal waxay ahayd arintu in madaxdu ay ka marto wadada kaliya Arabsiyo dhex marta anay dhaafaan imika wixii ka dambeeyay waxaanu madaxweynaha marti uga nahay iyo dawladda oo dhanba in wadooyin kale oo magaalada barkeed tusa dadka aanu maanta iyo bariba dhagax dhigno ama maalin kale hadii alla ka dhigo oo aanu wax qabadka dawladani waa dawladii wax qabadka ee ka qayb galo oo aanu wadooyin ama iska wax u qabso ha ahaato ama dawladdu ha naga caawiso ama laakiin xilka waxaanu saareynaa madaxweyne ku xigeenka waanu insha Allah ka soo jawaabi doonaa sidaanu aad iyo aad ugu rajo weynahay magaalada marka la wada arkana waxyaalo badan bay isbedeli doona oo ay dawladda si fiican isku fahmaan laakiin wadada kaliya la marayo ee Gabiley iyo Hargeysa xiriirisa aad iyo aad ama galbeed iyo bariba xiriirisa aad iyo aad bay Arabsiyo uga yar xun tahay si loogu baydhbayna hadaba oo maanta waxa uu arkay madaxweyne ku xigeenku waa wax aad iyo aad u yaab leh gaarigii aad wadato magaalada dhexdeedii sidii waxay dooxi tahay galaya oo caruurtii ku riixayso waa wax aad loola yaabo taasina waxaanu marti uga nahay dawladda dhanba oo wakiilka ka yahay madaxweyne ku xigeenku Cabdiraxmaan Saydici waanu aad iyo aad in badanna waynu ka sheekaysan doonaa madaxweyne waqtiga ay nahaya waan soo gaabinayaa aad baad u salaaman tahay